Wax akhrintu waa shay lagu cabbiro markii laga hadlayo ummad horumartay iyo xadaaradooda. Markii aan leenahay ummad waa ay horumartay, waxaan ula jeednaa in laga fiiriyo inta buug ay akhriday ummaddaas. Run ahaantii, wax akhrintu waa xadaarad, waana qodob aad u muhiim ah. Inaad wax akhrido waxay ka dhigan tahay inaad cimrigaaga siyaadiso, inaad hesho khibrad iyo macluumaad kala duwan. Buugga ama kitaabka aad akhrido waxaa lagu tilmaamaa saaxiibka ugu fiican ee lala fadhiisto. Diinteena ahmiyad weyn ayay siisay wax akhrinta. Aayaddii ugu horeysay ee Nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degtay waxay ahayd Iqra, micnaheedu uu yahay wax akhri. Sidaas darteed, ummaddan waxaa lagu magacaabaa ummatul Iqra. Laakiin nasiib xumo, inteenan badan waan iska indhatirnay wax akhrinta si horumar loo gaaro. Waana arrin caadi noqotay maanta in dowladaha horumarsan dadkiisa wax akhrinta lagu yaqaano markii ay tareemada saaran yihiin, markii ay sugayaan baska, iyo waqti walba oo ay helaan jaanis waxa ay akhristaan, khaasatan markii ay ku jiraan waddo dheer ah. Laga soo bilaabo waqti aad u dheer, wax akhrintu waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah waddooyinka bini'aadamku ku kasban karo aqoon iyo ilbaxnimo. Waxaa u sahlaya fahamka cilmi badan oo ka qarsoonaay. Wax akhrintu waxa ay keenaysaa in qofka iyo ummadaha ay horumaraan. Dhammaan ragga wax soo saaray ama sameeyay sida nalka, telefishinka, raadiyoga iyo waxyaabaha kale waxay heerkaas ku gaareen wax akhrinta. Waxaa la sheegaa maktabadii ugu horeysay ee faraaciinta sameeyeen inay iridda ku qoreen halkan waa cunnada nafta iyo daawada caqliga. Marka waxaana laga doonayaa inaan aad wax u akhrino si aan dunida ula jaan qaadno. Wax akhrinta waa farqi u dhexeeya horumarka iyo dib u dhaca. Ciddii wax akhrido waa ay horumartaa, ciddii seexato waa sidii ay u seexatay.